maanta oo ay tahay taariikhda 12 Oktoobar ayaa ku beegan 60 sano guuradii ka soo wareegatay maalintii la helay astaan ama calan uu leeyahay qaranka Soomaaliyeed kaasoo uu welifay marxuum Maxamed Cawaale Liibaan Allah u naxariistee sanadii 1954 calanka qaranka Soomaaliyeed oo maanta 60 sano jirsaday ayaa ku yimid halgan adag oo loo soo galay halgankaas oo ay hoggaanka u hayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed xisbigii SYL kuwaas oo ka soo horjeestay gumeystiyaashii dalkeena soo maray Soomaalida ku nool jasiiradda Malta ayaa ugu hambalyeeyay shacabka Soomaaliyeed maalintan qiimaha weyn ku fadhida iyagoo sidoo kalena bogaadiyay howlgallada nabad sugidda dalka ee ay dawladda federaalka Soomaaliya ka hirgelisay labada shabeelle. الرحمن الرحيم أنا مقعي مولي شيخ إبراهيم داهر أخوي هندا مالتا دلك مالتا وحكى برتا أرضنا كم يدا أخوي هندا وحن ما أنت رأينا كهالله سرد جوري كسو وريجتي لحدميدي كن سؤال بقول كنتني أفرتي مالنتي على كالصوماليات محمد عوالي الليبان يو عن رواينا هالكن كحصو هاليدي ومدة الصوماليات وسؤال جنتي وعن كلا رواينا هالكن كدرة إيشيجو الدولة الصومالية أمانة جولة فربضان لطاوان كركز ويس دلك الصومالية أمان كيد هذين خطأ مال بدن أي مال بدن جولة كسوين شباب. مقعي ومحمد عبد الله حسن جواد السيادة مالطا إن شاء الله مانتا و 12 أكتوبر وسنة جولة دي علن كان عوالة ولحنا جرسدي وحنوهم بلينا يوم الصومالية مالك سي جوكتو سنة جولة علن كان إن شاء الله وحن جعلها سنة كضمين الصومالية مدودة ومن نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وزكريا محمد سيدو وحان halkan maanta waa maalin aad u farax badan shucuurteeda maanta lama soo koobi karo waxaan halkan xambali ugu dirayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo dadkii soo halgamay calanka Soomaaliya oo aad u qurux badan xambaliyo sanadkiisa bashbashi barwaaqi leh inuu gaarsiiyo anigoo ah Ilyas Abuukar Maxo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay maadaama ay tahay maalintii laga gaaray calanka Soomaaliya guul ومادام أي تاي مانتا 12 أكتوبر آدي آد أيان أوفر أحسن نهاي مادام أمني ودن كان مانتو آدي آد وحصلوا خاصة سيد هاد قبلك شباب الغاص وآدي آد أي وهجاكتي آد أيان أوفر أحسن نهاي دولة مانتا صوماليا يعني جوله أي كجارتي. أنا جو أبيس بجيت أبيس وحنا كان كشيء مانتو حمود بالدقينا على كان صوماليا 12 أكتوبر أرين آد وفرح بدن أو جوله يعني دولتنا Soomaaliyeed maanta gaartay guul oo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe waxaan aad ugu hambalyeynaa Soomaali meel walba ay joogto yani inay isku imaadaan wadankii waxa tarkiisa wax qabadkiisa inay yani marxuum Maxamed Cawaale Liibaan Allah u naxariistay oo ahaa shakhsigii alifay calanka ayaa ku micneeyay xidigta cad ee calanka dhexda kaga taal nabadgeliyo halka buluuga calankana uu ku tilmaamay barwaaqada dalkeena uu leeyahay sida badda cirka hawada iyo dhulka sidoo kalena midabka buluuga ayaa lagu tilmaamaa adduunka midabka biyaha oo ah aasaaska nolosha Axmed Nuur Ibraahim Universal TV Malta.